waxaa ka mid noqon doona markii ugu horeysay wargeyska New York Times ayaa banaanka keenay in Israa'iil ay isku dayday inay disho laba qof oo kamid ah kuwa ugu sarreeya wadahadalada dalka Iran oo feejigan isla markaasna xaaladda oo faraha ka baxaysa Mareykanka oo arintani ka diidiyay isla markaasna u diiday Israa'iil inay mar dambe isku daydo in dadka wadahadalada ku jira ay weerar ku qaado xaaladda markii isbedeshay maanta oo Jimcaha iyo wararka ugu waaweyn ay haatan taagan saxaafadda soo galay ee breaking news-ka iyo xogtani oo laga helay meel sugan oo ah New York Times oo wargeysyada ugu afka dheer dalka Mareykanka sidoo kale warka waxaa ka mid noqon doona Iran si kasta waa ay u jabsatay Mareykanka wargeyska Wall Street Journal ayaa maanta qoray in Iran loo soo bandhigay lacag aad u tiro badan si mar ay xariga uga jarto oo ay u furto marbiyoodka Hormuz warka ayaynu ku fiirin doonaa sida Iran loo tuugtuugayo iyo lacagaha tirada badan ee markaasi la siinayo ma aha lacagtii iyada caalamka kaga xirneed ee waa lacag loogu darayo oo haatan Mareykanku uu diyaar u yahay warka ayaad ku daawan doontaa sidoo kale warkeena waxaa ka mid noqon doona sargaal magaciisa qariyay oo dawladda Turkiga u hadlay ayaa waxa uu sheegay wargeyska New York Times ayuu u sheegay arbacadii la soo dhaafay inkastoo warkan aan filayay in dad badan aan helin in aysan Turkigu cabsi badan ka qabin arinta dhaqdhaqaaqa Israa'iil ee Soomaaliya waxa uma aragna ayuu yiri sidoo kale waxa uu sheegay sira waaweyn oo ku aadan ujeedooyinka ay Israa'iil u tagayso Soomaaliya ay ka leedahay heshiiska loogu yeeray aqoonsiga ay la gashay maamulka Somaliland ee waqooyiga Soomaaliya warka ayaynu ku fiirin doonaa qodobo kale ayaa raaci doona inuu hawada ku jirno iyo warar goosgoosa oo ku saabsan aaska Ayatollah maanta Tehran ka bilowday iyadoo barodiiq xoogan ay markaasi soconayso warar kale ayaa raaci doona asxaabteena qof kasta muuqaalkan soo gaara hal like iyo hal subscribe aad baad u mahadsan tahay Tolman ayaan ahay asxaabteena Facebook muuqaalkan share gareeya like si aragtidina qaybta comment qodobka ugu horeeya warka waxa uu noqon doona sida ay ogaatay majalada New York Times Israa'iil ayaa waxay isku dayday in ay gasho hawada dalka Iran isla markaasna ay burburiso diyaaradda ay saaran yihiin wafdiga wadahadalada u qaabilsan dhinaca dalka Iran warbixinta ayaa waxaa lagu sheegay in walaac xoogan Mareykanka uu cirka gaaray kadib markii ay ogaadeen in Israa'iiliintu isku dayayaan waxa loogu yeeray ka hortagga wafdigaasi iyo in diyaaradda la ridaan inkastoo qorshayaal waaweyn ee Israa'iil ka damacsaneed haddana Mareykanka ayaa ogaaday isagoo arintaasi soo faragashaday haddaba warbixinta New York Times aynu fiirino diyaaradda dagaalka ee Israa'iil ay leedahay ayaa gashay hawada dalka Iran iyadoo markaasi uu xilligaasi socdo wada xaajoodka Tehran iyo Mareykanka oo ay ku hoolan yihiin qaab diblomaasiyada in loo xalliyo waxyaabihii dhexmaray sida markaasi lagu daabacay New York Times warbixinta ayaa sheegaysa in saraakiisha Mareykanka ay ka cabsi qabaan in Israa'iil mar walba ay daba joogto diyaaradda ay saaran yihiin kooxda wada hadalka u qaabilsan dawladda dalka Iran warbixinta ayaa sidoo kale waxaa la daabacay maalnimadii Khamiista ahayd galinkii dambe iyadoo la sheegay in saraakiisha Mareykanka ay sii kordhayso walaaca laga qabo in Israa'iil ay bartilmaameedsato wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iran Abbas Araghchi iyo afhayeenka baarlamaanka dalka Iran oo ah ragga ka nool raggii markaasi dawladda dalka Iran jilbaha u aasay in aan la jabin ninka lagu magacaabo Mohammed Bagher Qalibaf marka ay ka soo laabtaan ayaa la yiri wada hadalada Pakistan iyo meel kala duwan ay u tagayeen oo xitaa Doha ay ku jirto isku day kasta oo lagu diray hogaamiyaasha Iran waxa uu soo afjari doonaa wada hadalada waxaana dib u soo noolaan kara dagaal xoogan ayaa laga soo xigtay sargaal Mareykan oo uu sheegay warbaahinta New York Times iyadoo Washington ay si isa soo taraysa ay diiradda u saarayso dhaqdhaqaaqyada Israa'iil ay wax qarbudaada iyo waliba isku horkeenida Iran iyo inuu dagaal markale qarxo New York Times waxa uu sargaalkani u sheegay in Israa'iil ay diiday in diblomaasiyad wax lagu xalliyo ay u aragto xilligan in dagaal xoogan lala galo dawladda dalka Iran oo baha dhulka loogu xiro halkii wada hadal iyo lacag badan la siin lahaa wada hadal lagu deeyay